Ardadan oo baratay caafimaadka ayaa ka qalin bedeshay iskuul ku yaal deegaanka Dhagaxyaal ee Gurceel u jira in ka badan 30 kiiloomitir waxaana lagu maamuusay xaflad heerkeedu sareysay oo ay soo qaban qaabiyeen ardada iyo waalidiinta ubadkoodu barteen xirfadan caafimaad waana ardadii ugu horeysay ee ka qalin bedesha iskuul ku yaal deegaanka Dhagaxyaal mas'uuliyiin ka kala socday wasaaradda waxbarashada iyo caafimaadka ee Galmudug iyo waliba hadalada waxbarashada ee Taleesama ayaana ka soo qayb galay xafladan ugu horeyn dadka deegaanka ayaa xafladda ka hadlay sheegana muhiimadda xafladan ninka leeyahay maashaan arda ayaa ku qalin jabinaysa caafimaad baratay ninka leeyahay marka caafimaadka baratay khayr Allah siiyo intii ka soo shaqayday maashaan arda ku qalin jabiyay caafimaad ku qalin jabiyay hal sano wax soo barahayday ilaahay iyagana waxay barteen ku anfaco waalidiintoodiina waa anfac Allah ka dhigo 4 sano ka hor waxaan bixinay dhul dan guud ah isku day hadeer waxaan rabnaa dad arda waxa joogta qalin jabiday oo caafimaad u qalin jabiday iyo dhulkii oo dan guud ah oo banaan ardada looma tababarin inay magaalooyinka sita aadaan ay ka shaqeeyaan waalidiintu juhdi ugu ma bixin macallimiintu uma tababarin inta inay ka shaqeeyaan dadkooda wax ku taraan loo tababaray dhulka dan guudana loo bixiyay wasaaradda caafimaadka ee Galmudug waxaan ka codsanaynaa anakoo ka qayb qaadan doona sida muuqata inay wax ka bedelaan baaqaasaan u diraynaa waa codsi haddana ragaa nagala jira inta maqana way maqli doontaa Cabdullaahi Yar Macallin Xasan oo ka socday dalada waxbarashada ee Taleesama ayaan ardada ku dhiirigeliyay inay si laba jibaaraan dadaalkooda runtii farxad aan la soo koobi karin ay noo tahay in maanta deegaanka Dhagaxyaal aan uga qayb galayno ardo wax baratay ee qalin bedelanaysa gaar ahaan ardo baratay caafimaadka sida inta aan xasuusto waa deegaankii ugu horeeyay ee ka baxsan degmada Gurceel ee hoostaga degmada Gurceel ee ardo ka qalin jabisay caafimaad runtii ay ka soo muuqdaan waana dadaal iyo isku tashi aad sameeyeen waxaan rabaa in aan runtii ugu baaqo wasaaradda caafimaadka ee Galmudug maanta oo bataliyaasheeda nagala joogo Ustaad Daahir dadka Dhagaxyaal waa dad diyaarsan waa dad u baahan maaragtay in hor u socdaan waxa maaragtay codsanaynaa in la gaarsiiyo wasaaradda iyo wasiirada iyo maaragtay xubnaheeda kaleba fariinta ah in deegaanka maaragtay oo u baahan yahay caafimaad 70 iyo abaf ay u jiraan magaalada Gurceel gabadha maaragtay waana dareemi kartaa inta ka sokaysa xaaladaha degdeg ah wixii ka soo haraa lagu ma xalli karo sadaraada marka deegaanku wuxuu haystaa dhulkii wuxuu la baxay dhulkii wuxuu u baahan yahay dhismo wasaaradana waxa rajaynaynaa insha Allah fariintaas iyo codsigaas Dhagaxyaal ay dirayaan inay gaari doonto hadii la idmo agaasimaha waxbarashada degmada Gurceel Xasan Cabdullaahi Warsame iyo Macallin Daahir Xirsi oo isna ka socday wasaaradda caafimaadka Galmudug ayaa ardada kula dardaarmay in wixii ay barteen deegaanka ay ugu faa'iideeyaan hooyooyinkan waxaan ku talinaynaa wax badan aad shaqada soo qabateen lagu faa'iiday haddana insha Allah hadii la yiraahdo gacantiina barakaysan lagu sii faa'iidaan rabnaa marka waxaan u baahannahay in hooyooyinkaas tusaalan xirfadooda la sii hormariyo arintaas kaalin ka qaadanayna adigana qayb ka noqotaan waxaan u soo laabanayaa ardada hadda maanta qalin jabinaya waxaan leenahay waxa la inka rabaa sida mas'uuliyiintii hadlayba ay sheegeen inaad waxbarashadiina horta sii hormarisaan number 2 in aqoontiinu inay ka muuqato deegaanka oo la inka dareemo la yiraahdo hebela maanta maaragtay ilmi noo soo dura hebela maaragtay daawada noo siina warqadan noo soo qoray hebla noo akhrine in la soo raadiyaa la rabaa waxa la inku soo raadi karaa marka waxa waaye aqoontiina inaad hormarisaan la inku soo raadi karaa marka aad u mahadsantihiin marka waxaan leenahay wasaaradda caafimaadka dawladda Galmudug runtii waxaan ugu baaqaynaa in iyaduna ay hawsheeda qabsato oo ugu yaraan MCH caafimaad ay deegaankan ka hirgelido maadaama xirfadlayaal caafimaad ay deegaankii ka soo baxay oo deegaanku hadda uu cagiis ku istaagay waxaan kala rabaa inaan u mahad celiyo dalada Taleesama oo runtii ayadana caafimaadka iyo waxbarashada deegaanada degmada Gurceel hoos yimaad qaybo kamida gacan weyn ka geysatay walina wasaaradda waxbarashadana la shaqeeyda caafimaadkiina aad moodo in kali ku tahay oo wasaaradda caafimaadka ay wali
aysan deegaankii wax badan ka samayn kastoo rajaynayno ustaadka maanta uu ballanqaadyo badan sameeyey waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo ardayda qalin jabisay maanta runtii waxaad barateen waa xirfad wax la bartana xirfadda ugu wanaagsan